kulanka dhexmaray madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh mursal iyo gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi ayaa looga hadlay horumarinta iyo wada shaqeynta hay-adaha sharci dejinta dalka iyadoo madaxweynuhu warbixin kooban ka dhageystay gudoomiyaasha labada gole. kulanka ayaa sidoo kale lagu lafaguray sidii loo dardargelin lahaa howlaha horyaala labada gole kuwaas oo ka mid yihiin maalmarinta 29 hinta sharciyeed oo muhiim u ah fulinta howlo badan oo horyaala xukuumadda. madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa gudoonka sare ee golaha shacabka iyo kan aqalka sare kula dardaarmay in ka hor xiritaanka kalfadhiyada socda la meermariyo shuruuc muhiimada koowaad ay siisay xukuumaddu si gudashada howlaha horyaala xukuumaddu u sahlanaato. dabayaaqada bishii maarso ee sanadkan oo madaxweynuhu furay kalfadhigii shanaad ee golaha shacabka ayuu soo hadal qaaday sida ay lagama maarmaanka u tahay in golayaasha sharci dejinta dalku ay ahmiyad gooni siiyaan hindisa sharciyeedada ay xukuumaddu u soo gudbisay golayaasha.